sinaan iyo walaalnimo aan kala sirayn jirin waxaanu leenahay wasaaradaha kalena shaqooyinka loo idmaday qaranka u hayaan dadka naafadaha ka qayb geliyeen. ururka naafada Somaliland ayaa bogaadin iyo hambalyo buuxda u diray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mire Maxamed waxayna si diiran u soo dhaweeyeen tartanka orodka naafada Somaliland oo maalinta bariya wasaaradda ciyaaruhu ka qabanayso magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Xaaji Jaamac Diiriye iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Ibrahim Maxamed ayaa sidoo kale waxay wasiir Boss Mire ku amaaneen tartanadii kala duwan ee wasaaraddu ka qabatay gobolada dalka guud ahaan bahanaankiisa waxqabad iyo waliba kor u kaca ciyaaraha Somaliland oo ay sheegeen in wasiir Boss Mire uu ku soo kordhiyay waxqabad muuqda. hambalyo u direynaa jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Boss Mire Maxamed oo ah xubin aad u firfircoon oo ka soo baxay shaqadii loo idmaday. wasiirka waxaan ugu hambalyeynaa heesba waxay odhan jirtay Somaliland sodcaasho samada dusheediyo xidigaa ku socotaa soo noqon mayso. sinaan iyo walaalnimo aan kala sirayn jirin waxaad moodaa wasiirkii isboortiga Boss Mire shalay waynu daawanaynay waxaa tartamayay fardihii Somaliland berito haddii layna gaadhiso berito oo bishu ku beegan tahay 15 bisha 12 ee December waxa uu xaflad u qabanayaa ciyaara oo lagu kala haraya naafada Somaliland taasoo aan rajeynayno inuu gobolada iyo degmooyinka uu gaarsiiyo uu ka bilaabi doono haddii la qadaro madaxtooyada horteeda iyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa. haddii aanu nahay ururka naafada Somaliland waanu hambalyeynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu ka qayb qaadanaynaa waxaanu leenahay mudane wasiir hambalyo shaqadii aad qabatay ee aad u qabatay dadka naafada iyo ciilaanka aad soo jeedisay in dadka naafada ay noqdaan dad dalka xuquuq ku leh oo ka qayb qaata wax kasta oo loo soo bandhigo bulshada qaybtooda in la siiyo aad baan kugu hambalyeynaa. waxaanu leenahay wasiirada wasiirkii isboortiga ciyaaruhu qaybtii wuuna siiyey qaybtiisii wuuna siiyey oo uu naga qayb geliyey tartanadii ciyaaraha. waxaanu leenahay wasaaradaha kalena shaqooyinka loo idmaday qaranka u hayaan dadka naafadaha ka qayb geliyeen. wasiirka ciyaaraha iyo isboortiga waxaan leeyahay salaan horta korkaaga ahaato nabadgelyo korkeena ahaato. waxaan leeyahay tartanka aad qabato horta aad baan ugu faraxnay haddii ururka naafada Somaliland nahay waayo aad baan ku bogan wasiir mashruucyada la soo bixiyo nagu dara kow kaasaan adaan ku haynaa. waxaanu ku leenahay ambalyo wasiirada kale waxaan leeyahay sida ay kadaligeed iyakuna inay naga soo qayb geliyaan mashruuca sida uu wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ciyaaruhu uu nooga soo qayb geliyay. tartan ciyaareedkan ururka naafada Somaliland ay bogaadinta iyo hambalyada u direen ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Somaliland wuxuuna maalinta bariya ka qabsoomi doonaa xarunta afaafka hore ee qasriga madaxtooyada Somaliland halkaas oo boqolaal naafada Somaliland kamid ay ku kala calaf qaadi doonaan. waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland.